saan nasteexo waxaa inagu soo biiray dhakhtar dhanka caafimaadka ah Maxamed Caraale oo ku soo dhaweynayna ciid wanaagsan aadan ugu mahad celinayaa Bila TV oo inagu casuumay barnaamijkan sharafta badan la si ugu faa'iideyno dhibaatooyinka ciidda ka dhasho ummadda muslimiinta dhamaantood marka la ku soo dhaweynayna waxa inooga warantaa xaaladaha degdega ah ee caafimaad ee waqtiyada ciidda dadku ay la kulmaan hadii ahaaleed maadaama dadku ay 30 cisho soo soonaayeen bal inooga waran xaaladaha caafimaad ee qofku uu la kulmi karo qatarta uu la kulmi karo wallahi xilliga ramadaanka maadaama 30 maalmood ay tahay ciidna la galay oo waqti ciid hadda lagu gudi jiro xaalada emergency kala duwan ee dadka badanaa galaan xilliyada ciidda ha badnaadaan caruurta iyo dadka waaweyn emergency-da ugu badan oo dhaca waxa waaye markii la kala qaado dadka waaweyn waxyaabaha ugu badan oo ku dhaca waxaa kamid ah shuban matag in lagu arko taasoo u keenay in cunooyinka ku samoobaan waxa ku dhaca waxa loo yaqaan food poisoning marka food poisoning kaas wuxuu ka imaanayaa asagoo qofka waqti dheer soo soomanaa ayaa waxaa dhacaysa maalinta ciidda inuu isticmaalo waxyaabo dufan ah ama waxyaabo saliid ay ku badan tahay ama sweets fara badan inuu isticmaalo ama waxaa laga yaabaa qofka inuu cuno spicy foods cunooyinkan basbaaska leh ama cunooyinka la shiilay taasa marka waxay sababaysaa qofka bini'aadanka caafimaadkiisa inay ku noqoto wax khatar ah oo hadhow qofkan laga yaabo inuu ka sababo fuuqbax zaa'id inuu ku dhaco taasoo haddana keeni karta qofka inuu sahalsado oo dhaho waxyaabahan hadda kugu dhaco waxaa laga yaabaa inaad ka caafimaado oo hadhow laga yaabo soo emergency la keeno marka emergency-yada ugu badan oo aan ku aragno xilliyada ciidda isbitaalkeena ama ha ahaadaan dad caruur ah ama dad waaweyn oo qaangaaro ah xanuunadaas ugu badan markii taa laga soo tago dhibaatooyinka kale inta emergency-yada dhaca waxaa kamid ah xilliga ilmaha ciidda waxaan ogsoonahay waalidiinta waxay jecel ilmahooda inay aad u ciideystaan ee waxyaabo u soo iibiyaan waxaa kamid ah sida bistoladaha kuusha ama baaruudo kale taas ayada naftarkeeda waxay dhib gaarsiinaysaa ama dhib ku keenaysaa canugii inay ilmihii indhaha isaga dhuftaan taasoo sababi karta cunugii hadhow inuu indhaha ka dhaco ama nabar weyn oo zaa'id indhaha kasoo gaaro iyada naftarkeeda dhibaatooyinka ugu badan oo emergency-yada isbitaalka ku aragna waaye ilaa iyo shalay la keena dhowr caruur ah oo ayagoo baaruud ama kuul isticmaalay dhibkaas soo gaaray iyo dhanka kaleento oo midda kaleento oo maxaa la yiraahdaa shubanka iyo mataga faraha badan la dadku keena ayagoo cunooyinka kala duwan isticmaalay xilli ay soomanaayeen ayadan emergency ahaan u imaanayo xaaladahaas waa xaaladaha emergency-ga ah oo ugu badan ee xilliyadaas la arko ciidda ah bal inooga waran maxaa qofka ku wanaagsan inuu cuno ahaan u isticmaalo si qatartaasi uu kaga badbaado wallahi si qatarta looga badbaado waxaa wanaagsan qofka inuu isticmaalo cunooyinka caadiga ah oo normalka oo darayga ah intuu qaado lahaa qofka wax saliid leh ama wax dufan leh inuu cuno daray isticmaalo cunooyinka maxaa la yiraahdaa oo basbaaska leh ama aadka u kulul oo kale inuu iska ilaaliyo spicy-ga inuusan isticmaalin waxyaabaha kale oo wanaagsan waxaa kamid ah sweets qofka inuusan aad u badsanin walow aan ognahay Soomaalida inay aad u jecel yihiin sweets inay cunaan xilliyada ciidda laakiin qofku waxay ku keenaysaa culays marka qofku waxaa la gudboon inuu isticmaalo cunooyinka darayga ah oo qalalan oo aan dhib ku keenaynin iyo cunooyinka aan spicy-ga lahayn oo ayaga naftirkooda oo aan wax kuleel aan lahayn basbaas waxba aan lagu darin iyo inuu cabo biyaha normalka oo cabitaanaadka naftirkooda xitaa aan sokorta aadka looga badin oo kale inta qofka iska ilaaliyo waxyaabaha ugu muhiimsan waa oo qofkan xakameyn kara ama ka hortagi kara inay dhib oo la soo gaaro intii ay yani oo cunada ahaan qofkan jirkiisa oo kala qabsanaya maadaama bil ramadaan la soo dhaafo lagu jiray bisha Ramadaan qofka calooshiisa sida doctor hore u sheegtaba cunooyinka aad ayay looda balse qof waxa dadku inta badan Soomaalidu waxa caado ah xilliyada ciidaha in macmacaanka ay ku sooraan caruurta iyo dadka waaweyn bay isku marxabeeyaan marka taas ka soo tagno cunadiina qofkii uu isticmaalo oo cuno halis noqota ay ku noqota caafimaadkiisa sidee markaasi caafimaad ahaan uga soo kaban karaa qatartii soo gaartay fuuqbax iyo matagada ahaan lahayd wallahi qofku waxa u wanaagsan hadduu isku arko inuu cunooyinkaas markuu qaato ama fuuqbax ama matago kale isku arko waxa wanaagsan xarun alla xarunta u dhow caafimaad qofka inuu booqdo waa wadada ugu fudud oo qofkan loogu gargaari karo ama caafimaad oo ku heli karo haddii laakiin qofku waqtiga uu isku dheereeyo ama uu isdhaho maxaa la yiraahdaa waad ka caafimaadaysaa waxba ma ahan waxaa laga yaabaa inuu xaalado khatar ah soo galo xaaladaas khatarka uu keeni karo inuu qofka miir daboolmo oo asagoo miir lahayn la geeyo xarumaha caafimaadka u dhow markasta waxaa wanaagsan qofka markuu xanuunadaas isku arko kale ama aan kula talinay bulshada Soomaaliyeed si dhaqsi ah inay u tagaan xarunta u dhow caafimaad si wax loogu qabto gargaar waa gartay doctore dad waxaa jira maalmaha ciida 30 maalmood ay soo soomaayeen kadib xanuunadaas markay ay ku dhacaan waxa laga yaabaa inay isla adkeeyaan maxay halis oo kala kulmi karaan wallahi xanuunadaas halis badan ay kala kulmi karaan halisyada ugu weyn waxaa kamid ah haddii qofka fuuqbax zaa'id oo ku dhaco tusaale ahaan ana hadda waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay keliyo
shalay kiisaska emergency-ga u imaado waxaa kamid ah bukaano keliyaha ay fadhiisteen taasoo ay ku sababeen inay ramadaanka soo soomeen ayagoo xanuun dhanka keliyaha qabay iyo maxaa la yiraahdaa in ay isticmaalaan waxyaabahan hadda aan kasoo hadalnay cunooyinkan taasoo ku sabab marka qofka shuban iyo matag badan inuu galo marka shubankaas iyo matagaas badan qofka markuu galo waxaa ku dhaca waxaa loo yaqaana dehydration ama fuuqbax dehydrationkaas marka wadada kaliya qofka ugu bixi kara waxaa waa markaas inuu rehydration badan sameeyo si uu u caafimaado haddii qofka uuna dhicin waxyaabaha ugu badan uu ku dhici karo waxaa kamid ah inuu miir daboolmo nafaqa darri inay ku dhacdo oo shubankaas tabaryaro zaa'id ah iyo inay keliya xataa shaqada yareeyaan bukaanadeeda bukaano kamid ah xitaa sidaasoo kale ku dhacday oo shalay emergency aan ugu imaaday kuwaasoo ayaga naftirkooda aan meesha ugu bilaabay maxaa la yidhaahdaa in keliyahooda caafimaadkooda aan ku dadaalo ilaa akhiiran marka dambe loo go-aansaday inaan u sameeyo keliya dhaqis sabab la xiriira iyadoo kusoo sumoobay cunooyinkaas oo cuna darteed markaas kadibna ku dhacay shuban iyo matag badan kadibna xaaladiisa caafimaad ee keliyada hoos u dhac zaa'id ku dhacday shaqada keliyada ay ka joojisay dhanka kaleentana marka loo fiiriyo dhanka dheefshiidka qofka waxaa ku kaca gaas aad u fara badan taasoo sababi karta qofka mataga iyo lalabada inuu aad uga sii bato kadibna laga yaabo inuu yimaado alsar babtiga alsar waxaa la dhaho inuu caloosha nabar ku samaysmo kaasoo asna naftirkiisa qof dhib badan sii gelin kara marka waxaasoo idin marka waxaa looga baaqsan karaa oo qofka uga badbaadi karaa in cunooyinka oo hadda aan soo sheegnay ah qofka inuu isticmaalo laakiin uu iska ilaaliyo waxyaabaha kaleento inta lagu jiro maalmaha ciida doctor gabagabadii Soomaalidu markii ismaandhaafka cunada uu ku dhaco ama calooshii isaseeg uu ku dhaco qofka xilliga cunada cuni jiray maadaama uu soo soona dadka Soomaalidu waxay aad u fahansan yihiin ama ay u yaqaanaan cudurka ay ugu magac dareen gaaska qofka markuu qabto oo ay aaminsan yihiin in xilliga cunada ama uu kadib maray qofkaas ama uu waqti dheer uu cuno la'aan ahaa qataraha kaliyaha ee saameyn kara ee dhanka dheefshiidka la xiriira Soomaalida wax xasaasa kama fahansana bal inooga waran fahanka ay ka haystaan Soomaalida wallahi waa xiriir ka dhaxeeyo dhamaan jirka bini'aadamka systemka qaabka u shaqeeyo organiska dadkana fikir badan iyo ID badan kama haystaan tusaale ahaan haddii aan fiirino qofka hadduu qabo problem dhanka maxaa la yiraahdaa dheefshiidka ah waxyaabaha ugu badan oo ku dhacay waxaa kamid ah haddii qofkan gaas chronic ah uu qabiyo ama tusaale ahaan oo ku dhaco kaleento sida hadda aan soo sheegnay food poisoning kan oo kaleento cunooyinka inuu ku sumabo kaleento ee dhacdo kale mushkiladaha ugu badan oo dadka jira waxaa dadkeen hal eray ay barteen oo ay la qabsadeen jira marka qofku food poisoning ku dhaco ay dhahaan qarasta ayaa iga baxayso oo ii fiicanta qarasta ugu kacsan laakiin taas waxay qofku u keenaysaa dhibaato badan oo aanan ogeyn taasoo ah in caloosha nabar ku sameysmaan oo yimaado ulceraska hadda idin sheegay iyo in sababta xataa fuuqbaxas faraha badan hadduu qofka aad u mashquul ma aad u matago in qofka kaliyaha ay fariistaan oo ida naftirkeeda dhibaatooyin weyn oo meesha ka dhici kara ah marka taa marka waxaa la gudboon qofka labadaba cilaaqaad oo ka dhaxeeya inuu marka iska ilaaliyo oo ka hortago haddii xanuunadaas isku arkana markaas keeda maxaa la yiraahdaa oo haddii gaaska adigu ka csan yahay dawooyinkiisa isticmaalo dan haddii dawooyinkiisa oo qofka dhakhtarka u soo qoray wax isaga fahmi waayeen waxa uu wanaagsan qofka xarunta caafimaadka u dhow in markaas uu tago tala ahaan sidaas ugu fiican aan bulshadana la wadaaga insha Allah waa hagaag daawadayaal Dr. Maxamed Caraale wuxuu kamid yahay dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Dalmar wuxuuna wax badan tusaale iyo uu ka bixiyay qataraha caafimaad ee la kulma karaan dadka iyo caruurtaba xilliyada ciida Dr. gabagabadii aan soo gaarnay barnaamijka damaashaadka ciidan oo nagu soo booqato waan kaaga mahadcelinayna ugu dambeyntii aad ciid wanaagsan leedahay maadaama maalinta saddexaad ciida aan ku guda jirno waa maasantahay Allah waxaan jeclaan lahaa in ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka ummadda islaamka ku nool gaar ahaan waxaan ciid wanaagsan dhihi lahaa familkayga oo ugu horeeya aabahay Xuseen Maxamed Caraale iyo hooyaday Nimca Muuse Ibrahim waxaa kaleeto aad ciid wanaagsan u dhihi lahaa xaaskayga oo aad aan u jeclahay Nastaxa Saciid Ayle iyo gabadhayda aydan aan dunida ugu jeclahay Ilwaad Maxamed Xuseen iyo dhammaan familka iyo qaraabo inta maqalkayga iyo muuqayga taqaano iyo dhammaan Dalmar family shaqaalihiisa inaan la ciid wanaagsan Dr. annagana dhammaan haddaan nahay bahda Bila TV ku leenahay aad u maasantahay السلام عليكم برنامج كان ugu casuumteen ku mahadsan aad kaaga mahadcelinayna daawadayaalkaas wuxuu ahaa Dr. Maxamed Caraale oo inooga warmay qataraha caafimaad ee qofku la kulmo karo waqtiyada ciida maadaama qofku uu waqti dheer soo soomanaa